بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا wararkeena caawa qodobada aad ku daawan doontaan kuwada ugu doorka roon waxa kamid ah shirkadda basaska waaweyn ee Falcon Coach oo ka shaqeysa dawlad deegaanka Soomaalida oo dhawaanahanba soo badanaya shilalkeedu gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug oo ka hor yimid xilka qaadis lagu sameeyay xaaladda beledweyne oo dagaal qarka u saaran kadib markii uu diiday xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Dabageed safar degdeg oo la shaacinin oo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland uu ku tagay xalay saqdhexe magaalada Boosaaso adanka kalena boqortooyada Sacuudi Carabiya oo cunaqabatayn dhaqaale saartay marinka Gaza qadar oo isku dayaysa sidii u dhaxdhaxaadin lahayd Iiraan iyo Mareykanka iyo warbixin uu qoray falanqeeye arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Cabdullaahi Nuur oo ku saabsan taageerada ay mar walba dawladda federaalka ee Soomaaliya la garab taagan tahay boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sida aynan uga helin heel dhankeeda wararkaas iyo kuwa kale oo xiiso badanba waxaad ku daawan doontaan wararkeena caawa waxaan idin la socodsiinaya anigoo afkaadha Maxamed Axmed haatanna u diyaar garoobay iyagiyo faahfaahsan shirkadda basaska waaweyn ee Falcon Bus oo ka shaqeysa dawladda deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii dambaba waxaa kor u kacay shilalka gaadhiyadeeda ku imaanayay shirkaddan ayaa 10 maalmood ee ugu dambeeyay dhowr shil oo kala duwan ku galay deegaanka ay ka shaqeyso haddaba gelinkii dambe shalay ayuu shil ku galay bas ay leedahay shirkadda Falcon Coach Bus magaalada Shaygoosh ee ka tirsan gobolka Qorraxay daawac mooyaan shilkani wax dhimasho amuunan sababin gaariga ayaa la sheegay inuu galay guri ku yaala magaalada Shaygoosh oo wadada agteeda ah 31 May ayuu shilkii kan ka horeeyay waxa uu bas ay leedahay shirkaddani ku galay magaalada Araarso ee gobolka Jarar nooca shilkaasina gaariga oo xawli ku socda ayuu taayirku u baxay isna wax dhibaato ah daawac mooyeen oo dhimasho ah ma soo gaadhin lama oga sababta ka dambaysa shilalkan isku dhadhow ee ku imaanaya shirkadda Falcon iyadoo shacabkuna ay isweydiinayaan su'aalo fara badan shirkadda Falcon Coach Bus ayaa ka mid ah shirkadihii ugu horeeyay ee bilaaba adeega socdaalka deegaanka iyo dhammaan dalka intiisa kale madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Mudug isagoo dhinaca kale magacaabay gudoomiye cusub Cabdirashiid Xaashi Cartan oo ah gudoomiyaha xilka laga qaaday ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Gaalkacyo waxa uu ku sheegay in xilka qaadistiisa aan loo marin wada sharci ah laakiin uu arkay oo kaliya wareegtada baraha bulshada dhex wareegaysa isagoo oon lagu soo wargelinin aan la tashi la sameeyay waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada waxaan isla garanay in xilligan aysan jirin wax xilka qaadis ah ayuu yiri Cabdirashiid Cartan waxa kale oo uu ka hadlay xiriirka dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Galmudug waxaana uu sheegay in dawladda Galmudug aysan xiriirka u jari karin dawladda federaalka ah maadaama oo ay iyadu tahay xubin ka mid ah dawladda federaalka ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo xilka qaadista ku sameeyay gudoomiyahan xiisad dagaal oo aad u xoogan ayaa ka taagan inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo u dhaxaysa ciidamo gaar u leh Yuusuf Xagar Dabageed iyo ciidamo kale oo ka amar qaata Maxamed Cabdiwaare inta badan xiisadan dagaal waxay ka taagan tahay kastamka canshuuraha xarunta gobolka iyo kontaroolka laga soo galay magaalada Beledweyne oo dhamaantood ay ku sugan yihiin ciidamada Yuusuf Xagar Dabageed kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayay ku heshiiyeen inuu iska difaaco weerar kasta oo kaga yimaada dhanka Hirshabeelle iyaga oo ballan qaaday inay taageero dhan walba ah la garab taagan yihiin odayaasha ayaa la sheegay inay lama filaan ku noqotay Dabageed inay ku dhiirigeliyaan inuunan isdhiibin arrintaasi ayaa abuurtay walaac xoogan oo ka bilowday guud ahaanba magaalada Beledweyne warar ay warbaahintu heshay ayaa xaqiijinaya inay dhanka kale Hirshabeelle u diyaar garoobeen inay ku qabsadaan xoog xarumaha muhiimka ah ee Beledweyne madaxweyne Waare iyo Cali Guudlaawe ayaa amar ku bixiyay militariga Soomaaliya ee ku sugan Beledweyne inay soo qabtaan Yuusuf Dabageed ayaa shalay si cad u sheegay inuu warbixintaasi helay isla markaana uu diyaar u yahay inuu isdifaaco weerar kasta oo kaga yimaada dhanka Hirshabeelle
haddaba magaalada beledweyne waa dagaal u joog waana fududahay in lagu dagaalamo daqiiqad kasta. yuusuf dabageed waxa uu haystaa ciidamo aad u qalabaysan iyo gaadiid dagaal, halka hirshabeelle oo haysata ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay doonaysa inay magaalada ka saaraan dabageed oo ilihii dhaqaalaha iyo xarunta gobolkaba degan. ma jiro wax dhaqdhaqaaq oo ay wadaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ku aadan joojinta xiisadda ka taagan gobolka Hiiraan. haddii dagaal ka dhaco beledweyne waxaa halis geli doonta nolosha kumanaan shacab ah oo haddaba la daala dhacaya duruufaha nololeed ee adag. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Karaash ayaa safar degdeg ah oo aan la shaacinin ku gaaray xalay gelinkii dhexe magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. safarkan oo xilli habeenimo ahaa ayaan horey loo sii shaacinin, waxaana xalay gaaray magaalada Boosaaso isaga oo sii maray deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bari. wararka aan helayna ayaa sheegaya in safarka Axmed Karaash ee uu Boosaaso ku jooga ay ku saleysan yahay 3 ujeedo. waxa uuna muddo kooban sii joogi doonaa magaalada Boosaaso. isagoo saxaafadda la hadlayay ayuu sheegay in safarkiisa uu yahay mid shaqo, isla markaana uu muddo kooban ku sugnaan doono magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, kadibna uu ku laaban doono magaalada Garowe. waxaan halkan u imid safar shaqo oo ku beegnay goor habeenimo ah, waxaana soo maray deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bari. ujeedadeeduna waxay tahay inaan waqti yar joogi doono halkan, ayuu yiri Axmed Karaash. xogaha kale aan helayna ayaa sheegaya in ujeedada koowaad ee safarkiisa ay tahay wax ka bedelidda laamaha ammaanka ee magaalada Boosaaso si loo adkeeyo ammaanka magaalada Boosaaso oo maalmihii ugu dambeeyay xaalado amni darro ah ay ka dhaceen. ujeedada labaad ee safarkan ayaa la qiyaasayaa inay tahay arrinta ka soo cusboonaatay deegaanka af urur oo al-shabaab ay la wareegeen kadib markii ay iskaga soo baxeen ciidamada daraawiishta ee Puntland, waxaana deegaankaasi uu u jiraa magaalada Boosaaso 90 kiiloomitir oo kaliya. arrinta saddexaad ayaa lagu wadaa inuu kulamo degdeg ah halkaasi kula qaato wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan iyo taliyaha ciidanka booliska Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay xiisad ay kala dhaxaysay madaxweyne ku-xigeenka Puntland. shirar gaargaar ayaa ka socda xarunta gobolka oo ku taala magaalada Boosaaso, waxaana kulamada u badan wada qaatay saraakiisha ammaanka, wasiirka amniga iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland. magaalada Boosaaso iyo deegaanada kale ee Puntland waxaa ka socda abaabul ciidan si ay dib ugu qabsadaan deegaanka af urur oo dhawaan si nabadgelyaha ay kula wareegeen al-shabaab. wax ka yar 7 kadib markii Sacuudiga ay xireen 60 qof oo isugu jira Sacuudiyaan iyo Falastiiniyiin ay ku eedeeyeen inay taageeraan kooxda Xamaas, ayaa imika waxa xayiraad dhaqaale ay ku soo rogeen magaalada Gaza. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa hadda xanibay lacagihii laga diri jiray Sacuudiga ee qoysaska Falastiiniyiinta ay ku caawin jireen ehladooda ku nool marinka Gaza. waxaa sidoo kale la joojiyay lacagihii ka imaan jiray Gaza. xayiraadan ayaa waxaa ku jira lacagaha rasmiga ah iyo kuwaan rasmiga ahayn ee loo diri jiray Gaza, waxaana toddobaadkii tagay aad hoos ugu dhacay lacagtii Sacuudiga laga diri jiray ee loo diri jiray Gaza xilli lagu guda jiray munaasabadda Ciidul Fidriga oo dad badan oo reer Gaza ay u baahnaayeen caawimaada ehladooda. tallaabadan uu Sacuudigu qaaday ayaa si xooggan u saameynaysa dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Gaza. dhammaan bangiyadii lacagaha xawili jiray ayaana hakad la geliyay toddobaadkii tagay. waxaa jira hab aan rasmi ahayn oo dhumaalaysi ah oo weli dadka qaar ku sugan Sacuudiga ay lacag ugu diraan walaalahooda Falastiiniyiinta ah. hase yeeshee waxay qaadan waqti dheer oo mararka qaar laga yaabo inuu gaaro maalmo, halka markii hore lagu diri jiray daqiiqado ama saacado. Falastiiniyiinta ayaa tallaabadan ku macneeyay olole cusub oo ka dhan ah bulshada Falastiiniyiinta ee ku nool Gaza iyo sidoo kale kuwa ku nool Sacuudigaba, iyaga oo Falastiiniyiin badan oo degan dalka Sacuudiga ay yihiin arday ay dibadaha lacagi uga timaado. 2 sano ee ugu dambeeyay mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo Falastiiniyiin ah oo intooda badan lagu eedeeyay inay taageeraan kooxda Xamaas. arrintani ayaa imaanaysa iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay aad isugu soo dhawaanayeen dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo maamulka Yuhuudda. bishii Abriil, Maxamed bin Salmaan ayaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ugu yabahay $10 bilyan si uu aqbalo waxa lagu magacaabay heshiiska qarniga oo Mareykanku uu wado, kaasi oo magaalada Gaza lagu wareejinayo Yuhuudda. Cabbaas ayaana yabohaasi diiday. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa ku baaqay dadaal albaabada loogu furayo wada hadal u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka.
sheekh maxamed cabdiraxmaan athani ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada London in Qatar iyo dalal kaleba ay labada dhinac xiriir la sameeyaan si xal loogu helo xiisadda sii xoogaysanaysa ee gobolka. hadalkan ayaa imanaya iyadoo oo lagu wado toddobaadkan inay booqasho ku tagaan magaalada Tehran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Heiko Maas iyo ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe, iyadoo ay isku dayayaan xal u helidda xaaladda ka dhex aloosan labada dal. sheekh maxamed ayaa sheegay in Qatar oo ay weheliyaan dalal kalena ay isku dayayaan inay dhex galaan si meesha looga saaro xiisadda labada dhinac. waxa uu farta ku fiiqay in dhinac kasta uu leeyahay dagaal ma rabno, balse uu sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheeri ah albaabada loogu furo wada hadal dhex mara labada dal. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu rabo in Iiraan wada hadal lala yeesho, balse Iiraan ayaa sheegtay inaysan taasi dhici karin oo Mareykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nuclear-ka ee sanadkii la soo dhaafay, isla markaana uu sii wada cunaqabatayn curyaaminaysa howlaha Iiraan. Mareykanka iyo xulafadiisa oo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Israa'iil ayaa isku dayaya in Iiraan ay saaraan cadaadis dhaqaale. sheekh maxamed ayaa sheegay in Qatar ay xushmeynayso siyaasadda Mareykanka, balse wuxuu sheegay in gobolka ay tahay in arrintan dhinac kale laga fiiriyo. waxa uuna sidoo kale sheegay in qofkii jecel iyo kaan jeclaynba Iiraan ay gobolka ka mid tahay. wadamada Carabta oo ay Qatar ka mid tahay ayaa dhowaan kulan ku yeeshay magaalada barakaysan ee Maka ee dalka Sacuudiga, waxa ayna ka wada hadleen xiisadda gobolka. balse sheekh maxamed ayaa sheegay in shirkaasi diiradda lagu saaray oo keliya cambaaraynta Iiraan beddelkii la geli lahaa sidii loo wajihi lahaa xaaladda Iiraan. haddana ku soo dhowaada warbixin uu qoray Cabdulaahi Nuur oo ah falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha. qormadaasi oo ku saabsan taageerada indhala-aanta ah ee Soomaaliya ay la barbar taagan tahay Sacuudi Carabiya iyo Sacuudiga waxyaabaha ugu abaalgudo. dowladda Soomaaliya waxay marar badan cambaarayn iyo dhaleecayn dusha uga tuurtaa dalal iyo kooxo Sacuudiga ay hayaan iyadoo oo la safata dowladda Sacuudiga. waxaa ugu dambeeyay taageerada Soomaaliya ay siisay Sacuudiga markii uu ku jiray fadeexadii Khashoggi oo ay difaacday Sacuudiga kuna tilmaantay mid ceebka saliima. sidoo kale shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Maka al-Mukarrama oo lagu cambaareeyay duulaanka Sacuudiga ee Xuutiyiinta, kaas oo Soomaaliya ay qayb ka ahayd, sidoo kalena ay ka soo saartay bayaan ay ku cambaaraynayso. taas beddelkeeda Sacuudiga weligood ma garab istaagin Soomaaliya, kumana taageerin marka ay ku jirto xaaladaha adag. taas beddelkeeda Sacuudiga weligood isma garab taagin Soomaaliya, kamana taageerin marka ay xaaladaha adag gasho. iyadoo hadda muran badeedkii ugu weynaa iyo xiisaddii ugu kululayd Soomaaliya kala dhaxaysa dalka Kenya, ayna Soomaaliya aad ugu baahan tahay taageero diblomaasiyadeed. maadaama aan nahay dowlad aan awood badan lahayn, Sacuudigu wuxuu ciyaarayaa dowrka dhexdhexaadnimada. waxdan ahna kama laha xataa haddii Kenya nagu soo duusho Ethiopia noo soo raacdo. sidoo kale markii ay Soomaaliya xiisaddu Imaaraadka kala dhaxaysay, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer ku dacweysay Sacuudiga isagoo oon dhag jala quseynin, kuna taageerayay Imaaraadka in ay cadaadiska ku sii wadaan Soomaaliya. Sacuudiga wuxuu xiray xoolaha Soomaaliya isagoo heshiis dhoofin oo weyn la galay dowladda Ethiopia, taasi oo curyaamin dhaqaale oo toos ah ku ah dowladda Soomaaliya, iyadoo xoolaheediina laga faa'iideysanayo oo Ethiopia laga dalbanayo. ma aqoonsana baasaboorkeenna, lagumana geli karo dalka iyadoo oo ay ixtiraamaan dalal badan oo aan derisnahay oo inaga dhexeeya xifaaltan. walow ayba Sacuudiga inoo dhaamaan oo dhanka amniga ay naga caawiyaan, dadkeennana martigeliyeen xilligii dhibaatada, baasaboorreedeennana aqoonsan yihiin. waxaasi oo dhan waxay Soomaaliya tusaysaa inaan nahay aalad uu Sacuudigu ku adeegto oo xataa uunan dayactirin marka ay cilladowdo. sababtoo ah haddii uu wax inoola haraya meel unbuu inoo badbaadin lahaa. sababta aan aalad Soomaaliya ugu tilmaamayna waa in aan la yaabay sababta aysan marnaba u dhihi karin war anigaba markayga ii hiiliya sida aan kuugu hiiliyo marka aad dhibaato gasho, ama nagu kala wada annagu Xuutigaanba ka ammaan helnaa oo xaq nagu leh inaan taageerno. ugu dambayn dowladda Soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa inay dhexdhexaad ka noqoto colaadaha bariga dhexe, ama cidda ay la safanayso ay noqoto mid saaxiib rasmi ah oo la isku halayn karo xilli walba iyo xaalad walba. intaasi ayuu ku soo afjaray falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha Cabdulaahi Nuur warqadii uu qoray. aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, waana mareeg furan uu qof walba ku gudbin karo ra'yigiisa saliimka ah, kuna soo diri karo qoraalada kommentiga hoose.